بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin soo gudbinayaa qiso cajiib ah. haweeney muslimad ah oo u dhalatay dalka Sacuudiga ayaa waxa ay tiri ninkeyga Allah u naxariistee waxa uu geeriyooday aniga oo da'deedu tahay 30 sano jir. waxaanan haystay caruur isugu jirta gabdho iyo wiilal. kadib geeridii sayigeyga adduunyadii oo dhan ayaa ii soo urtay. sidii aan u ooynayay ayaa indhahayga nuurkoodii yaraadeen. waxaan istusay iskana dhaadhiciyey inaan ahay qofka adduunyada ugu nasiibka xun. caruurteeduna way yaryar yihiin. waxa dhaqaalaha ah ama biilka ah in soo galana waxbana ama taraan. waxaan biilanaa xoogaa uu ka dhintay ilmahayga aabbahood. waxay tiri haweeneydani maalin anigoo iska fadhiya gurigayga ayaan furay idaacadda qur'aanka kariimka ee Makka. kadibna waxaan maqlay sheekh ka hadlaya istighfaarta iyo faa'iidada ay leedahay. aad ayaan u dhageystay. kadib waxaan bilaabay in aan istighfaarta badiyo. caruurteedana sidaas si lamid ah waxaan ku amray in ay istighfaarta badiyaan. waxaa dhacday muddo yar kadib dhul aynu lahayn oo beri hore wado ama jid la dhisay maray oo aynu ka sabarnay xilligii uu noolaa ninkeyga ayaa inooga timid lacag aad u badan oo malaayiin ah. wiilkeygii weynaa waxa uu noqday kan ugu horeeya taxfiidka qur'aanka kariimka magaaladii aynu ku nooleen. waxaana mas-uul looga dhigay isla wiilkeyga dadka tabarta daran waxtarkooda iyo dhaqaaleyntooda. khayrkii ayaa naga batay, nolol fiicanna waanu ku noolaanay. ilaahayna waxa uu ii xifdiyey wiilashayda iyo gabdhahayga. walwalkii iyo murugadii i haystay Allah waa uu iga qaaday. waxaan noqday qof farxaan ah. waxay tiri haweeneydii intaa oo dhan waa fadliga istighfaarta ay leedahay. haddaba qof kastoo inaga mid ah waxaan kula dardaarmayaa naftayda iyo tiinaba in aan badino istighfaarta. sida ugu sareysa ee Allah subxaanahu wa ta'ala loo weydiisto dembi dhaaf waa in aad tiraahdaa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika ma istada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. ilaahay ha ina waafajiyo waxa uu jecel yahay isla markaana uu raaliga ka yahay. la wadaag fiidiyogan asxaabtaada kale si ay uga faa'iideystaan